بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة مع العبقري يوتيوب channel وأنا مع العبقري ما أنتوا حندين ودنا vocabulary كانوا وحوها 4000 essential English words بوقتي بوغيسي كوات أيانا وحان كمريني unit كيسي تضبات balse intaan u gelin unitka toddobaad sharxaadiisa iyo dhegeysigiisaba cabqari online academy waxaa ka socda koorsooyin kala duwan oo luqadda Englishka oo waqti leh certificate ama shahaadana leh khidmo kala duwan oo aad u badnayn la iska bixinay cidii danaynaysa koorsooyin kala duwan barashada luqadda Englishka khaasatan koorsadan vocabulary-ga loo yaqaano 4000 essential English words oo 6 buu ka kooban iyadoo koorsa laba qaab lagu dhiganayo intensive iyo normal ay jirtaa normal kuna yahay 5 bilood intensive kuna yahay 3 bilood marka intensive-ka iyo normalka way kala yihiin lacag ahaan waqtigaadu kala yar iyagoo dhammaystiran oo buug walba lagu qaadanaya ayaa koorso lagu qaadanaya kadibna certificate ku helaysa haddii kalena si free ah usbuuciiba hal cashir inkastoo muddo dheer ay qaadanayso halkan ayaad ka helaysaa koorsooyin kalood ka helaysa waxaa ka mid ah tenseska oo grammar ahaan ah oo 12 tense active-ka passive conditional repose speech 3 bilood bis ah lagugu barayo grammarka oo idil oo koorsa waxaa helaysaa academic writing-ka laakiin waa inaad vocabulary fiican iyo grammarka si fiican uga dhisan tahay speaking course jirta iyo labadii koorso caadiga ahayd oo standardka ahayd oo 6 bilood koorso walba ay ahayd oo Englishka oo idil lagu baranayo bilowga iyo dhamaystirkaba intermediate ila upper iyo advanced koorso 6 bilood ardada wax soo aragto la siinayo iyo bilow 6 bilood oo buugta muqarrarka ay student book workbook lagu qaadanayo oo interchange Cambridge-ka manhaj ahaanta soo dhawaada marka insha Allah casharkeena vocabulary-ga unit-ka toddobaad aan galaynaa waxaan rabaa cidii nagu tixnayd oo awal ku tixnayd kala la socotay casharada iyo duruusta macal cabqari YouTube channel ka socota aad baad u mahadsantihiin aad ku sii dadaashaan inaad like iyo share-ta aad ku sii badisaan si bulshada kale ee danaynaysa ay u gaarto bulshada kale cusub channel-kan ku cusub welina aan subscribe garaynin gambaleelkan aan furanin waxaan ka codsanayaa inay sidaa yeelaan dhiirigelin ay noo tahay iyagana aqoon kororsi ay adinkana idin noqonaysaan idhaahdo aad baad u mahadsantihiin duruuseena casharkeena bilaabeynaa soo dhawaada waa mar kale macal cabqari iyo casharkeena insha Allah maanta casharka aan qaadanayno ama unitka aan qaadanayno waa unitka toddobaad ee buugga koowaad 4000 essential English words ilaa buugga lixaad waa la wadi doonaa laakiin usbuuciiba hal cashir waaye koors ahaana waan sheegay in loo helayo 6 buug oo isku xiran waqti kooban ah qadar yar oo lacag qaadi doona insha Allah unitka toddobaad waaye word list erayga ugu horeeya waa allow intaan u gelin laakiin sharxaada iyo fasiraada iyo balan dhageysana insha Allah diilaa Unit 7 Word list Allow To allow something to happen means to let it happen. Having a ticket will allow you to enter the show. Announce To announce something is to make it known. He announced to everyone his new idea for the company. Beside When someone or something is beside you, they are next to you. The two brothers stood beside each other. Challenge A challenge is something difficult to complete. It was a challenge to climb to the top of the mountain. Claim To claim means to say that something is true.
He claimed to know why the country's laws were weak. Condition. The condition of someone or something is the state that they are in. The patient's condition was very good. Contribute. To contribute to something means to do something to make it successful. We decided to contribute money to the new hospital. Difference. A difference is a way that something is not like other things. The biggest difference between the birds is the color of their feathers. Divide. To divide something is to make it into smaller parts. We divided the pizza. Expert. An expert is someone who is very good at doing something. The wizard was an expert at magic. Famous. If someone or something is famous, they are known to many people. The Eiffel Tower in Paris is very famous. Force. Force is a person's strength or power. He used all his force to try and open the door. Harm. Harm is hurt or problems caused to someone or something. A hot iron can cause great harm if you are not careful. Lay. To lay means to put or place in a horizontal or flat position. Don't lay your socks on the floor. Peace. Peace is a time without war. A white dove is a symbol for peace. Prince. A prince is the son of a king. The prince and the princess were married. Protect. To protect someone is to stop them from getting hurt. Firemen protect us from fires. Sense. To sense something is to know about it without being told. I could sense that he was watching me. Sudden. When something is sudden, it happens very quickly. He felt a sudden pain in his chest. Therefore. Therefore means for this reason. He is fat, therefore he will go on a diet. intaas waxaa inoogu eg marka insha allah dhegeysigii waxaan gelaynaa sharaxaadii haddii ilaha yidhaahdo. Allow waa ogolaansho. To allow something to happen. To allow inaad ogolaato something to happen inay wax dhacaan means waxay micnaheedu noqonaysaa to let it happen inay wax dhacaan. Inaad ogolaato inay wax dhacaan. Marka allow waa ogolaansho. To something inaad ogolaato wax to happen inay dhacaan means waxay micnaheedu noqonaysaa to let it happen waxaad adigu ogolaatay inay dhacaan. Having a ticket. Having a ticket means taking a ticket. Hafta auxiliary ahaan waa loo isticmaalaa, main verb ahaan waa loo isticmaalaa. Lahaanshihii maaha marka. Having a ticket means taking a ticket. Qaadashada ticketka will allow you waxay ku ogolaan doontaa adiga to enter inaad gasho the showga inaad gasho sababtoo ah waxaad ku gelaysaaba waa ticketkan macnaha buletiga ama ticketka ayaad ku gelaysaa. Announce waa ku dhawaaqid shaacin. waxaa la yidhi marka to announce something si aad wax u sheegto is to make it known waa inaad ka dhigto wax la wada ogyahay ama la wada yaqaano shaacin ama sheegid waa. He announced to everyone wuxuu qof walba u sheegay his new idea fikradiisa cusub for the company ee shirkadda. Marka announce waa ku dhawaaqid ama shaacin waaye. Beside waxay macno ahaan noqonaysaa ama ay la mid tahay next to. The mobile is next to television. Mobilka wuxuu yaalaa telefishinka dhinaciisa. Beside marka waa dhinac laakiin besides markay noqoto way ka duwan tahay. S markaad ku aragto iyada la socoto labadaba waa prepositions laakiin way kala shaqadii kala duwan yihiin. Waa marka laga reebo iyo in addition to ay noqonaysa markay S wadato. When someone or something is beside you. Markii qofi
ama something waxi is beside you ay dhinacaaga yaalaan, they are next to you, dhinacaaga ayay yaalaan. Marka next to iyo beside waa isku macno. The two brothers, labada walaalaha, stood beside each other, mid kale ayuu dhinac istaagay. Challenge waa loolan. A challenge is something waa wax difficult, adag, to complete, in la dhammaystiro. It was a challenge, waxay ahayd loolan, to climb, in la fuulo, to the top of the mountain, lakada buurta. Qof kasta ma kori karin, marka howl adag waaye in la dhammaystiro. Marka it was a challenge, waxay ahayd loolan, to climb, in la koro, to the top of the mountain. Top of haddaad aragto dakada ama meesha u sareysa wax waaye. Climb sheegasho waaye. To claim means, claim macnaheedu waxa waaye, claim waa to say inaad tiraahdo that something is true. Maxaa waaye? To say inaad tiraahdo that something is true, inay wax run yihiin. He claimed to know, wuxuu sheegtay inuu og yahay ama yaqaano, why the country's laws, sababta dalka sharcigiisa, were weak, oo daciif u ahaa ama u liitay. Erayga xiga waa condition, waa sharuud, marna waa xaalad. Hadda xaalada waaye macno ahaan hadda ku macnaynayno. Erayada qaar buugu wuu noo sharaxayaa. Erayganoo kale wuxuu yidhi waa preposition, kanna wuxuu yidhi n waa noun, kanna wuxuu yidhi v waa verb, kanna wuxuu dhahay waa noun waa n. Haddaan ka tago sharaxaada lacala aan hilmaamo sida u fahma. Markasta erayga wuu soo hordhigayaa, dhawaaqiisana waa kaasaa eray kasta. Erayga nooca uu 8 bar speech-ku ka yahayna wuu sharaxayaa. Haddaba marka waxaan rabaa marka in condition erayga xiga waxa waaye waa xaalad waaye. Condition markan waa xaalad. The condition of someone, xaaladda qof. The condition of someone, xaaladda qof, or something ama wax, is state waa xaaladda that they are in ay ku jiraan. State lafteeda waa xaalad. Marka the condition of someone, shuruuda ma la dhahay markaan, shuruud maana, waa xaaladda oo someone ama something, qof ama shay ama shay, something wax aan idhaahdo, is the state waa xaaladda that they are in ay ku jiraan. The parent's condition, waalidka xaaladiisa, was very good, aad ayuu u fiicnayd. The parent's condition was very good. Waalidka xaaladiisa aad ayuu u fiicnayd. Contribute waa bixin. To contribute something, inaad wax bixiso, means waxa waaye to do something, inaad wax samayso, to make it successful. Inta badan waxa la bixinayana waa lacag lagu tabarucaya wax si guul loo gaaro. We decided, waxaynu go'aansanay, to contribute money, inaan lacag u deeqno ama siino, to the new hospital, maxaa la yidhi, isbitaalka cusub. Difference waa farqi. A difference, farqi, is a way, waa hab, that something is not like, inaysan wax la mid ahayn other things, inuusan shay kale la mid ahayn macnaha. The biggest difference, farqiga ugu weyn, between u dhaxeeya the birds, shimbiraha, is the color, waa midabka, of their feathers, baalayaashooda macnaha, baalaha waa garbahooda macnaha, baalayaasha, baalalkooda aan idhaahdo. Divide waa qaybin. To divide something, in wax la qaybsho, is to make it smaller parts. To divide something, in wax la qaybsho, is to make it smaller parts. In laga dhiga qaybo yaryar laga dhigo. We divide, waynu qaybinay, the pizza, PC ayaanu qaybsanay, ama PC ayaynu qaybinay. Expert waa khuburo. Expert waa khuburo. An expert is someone, waa qof, who is very good at, ku wanaagsan, doing something wax. Waa qof expert, waa khuburo, is someone, waa qof, who is very good at, kaasoo ku wanaagsan, doing something, wax sameeyo. Wizard waa qofka sixrowga ah. Wizard waa qofka sixrowga ah, magician waaye, weliba nin labka loo isticmaalaa. Was an expert, wuxuu khibrad u lahaa ama khuburo ku ahaa at magic, sixirka. Ku ahaa magic, sixirka. Erayga xiga famous waa caan ah. Fame magacu ka yimid. He has a fame, haddii la yidhaahdo isagu magac uu leeyahay waaye.
famous haddaa aragtana OUS haddaa aragta ereyga dambaysan adjective waa sifada iska leh OUS taas. If someone or something haddii qofi ama wax is famous ee caan yihiin, they are known waa la yaqaanaa to many people, dad fara badan ayaa yaqaanaa. The Eiffel Tower, taalada dheer oo Eiffel Towerka loo yaqaano in Paris ee Paris ku taal is very famous, aad ay caan u tahay. Haddaad ka aragto sawir ama video waa fahmaysaa inay taaladii Faransiiska tahay. Force waa awood. Force is a person's strength ama power. Force waa awoodda shakhsiga ama qofka. Strength iyo power waa awood. Physical ka mid ah waxa waaye strength ayaa loo isticmaalaa awoodda shakhsiga qofka jirkiisa. He used all his force. Wuxuu isticmaalay dhammaan awoodiisa to try so isugu dayo and open the door albaabkan uu furo. Awoodiisa dhan ayuu isticmaalay so isugu dayo albaabkan uu furo. Harm waxyeelayn waa. Harm is a hurt ama problems waa dhaawac ama waxyaabo caused sababaya to someone qof ama something wax qof ku sababaya xanuujinaya. A hot iron birta kulul can cause waxay sababi kartaa great harm waxyeelo weyn if you are not careful haddaadan taxadarin. Birta kulul waxay sababi kartaa harm waxyeelo aad u weyn ay sababi kartaa. Lay waa dhigid. To lay waxa waaye macnaheedu means waxa waaye to put ama place. Place laftigeeda hadda waa verb. Horizontal ama flat position. Si flat ah fidsan u dhigto ama si toos horizontal una u dhigto macnaha. Vertical horizontal Soomaan. Si horizontal ina u dhigto. Don't lay your socks on the floor. Ha dhigin sigisaantaada ama sharabaadyadaada on the floor. Dhulka ha dhigin. Ereyga xiga waa peace waa nabad. Peace maxaa waaye? Waa nabad. Ereyga xiga waa peace waa nabad. Peace is a time, nabadu waa waqtiga without war uusan dagaal jirin. Peace is a time without war waa waqti aan dagaal jirin. A white dove. Dove waa shimbir. White-na waa cad. Marka shimbirta cade is a symbol for peace. Waa dareemaysaan marada cad ama shimbirta cad mara loo isticmaalo marka qaar laakiin shimbirta cad is a symbol for peace waxay calaamad u tahay nabadda. Prince waa wiilka boqor ku dhalay ina boqor amiir. A prince amirka is the son waa wiilka of a king ee boqor. Prince waa wiilka amirka wiilka boqorka ama princess iyo amiirada were married. Wiil boqor iyo gabar boqor ayaa isguursaday. Protect ka hortagid ama ilaalin waaye. To protect someone inaad qof ilaaliso is to stop them waa in ay ka joojisa from getting hurt inay dhaawacmaan ama waxyeelo soo gaarto. The firemen nimanka damdamiska ah protect us waa ina ilaaliyaan from the fire dabka inay ilaaliyaan. Sense waa dareemid waa verb. V marda aragto waa verb. Hadda in aragtana waa noun marka adj daartan adjective adv yeah preposition. To sense something inaad wax dareento is to know waa inaad ogaato about it iyada without being told iyadan lagu sheegin adi inaad dareemid waaye marka sense waa dareen marna waa dareen hadday noun tahay hadday verb tahana waa dareemid. I could sense waan dareemi karay that he was watching me inuu aniga ila socday ama i daawanayay aniga. Sudden waa dhaqsi waa quick oo kale. Sudden maxay noqonaysaa? Waa dhaqsi ama quick waaye. Sudden waa dhaqsi. When something is sudden markii wax si dhaqsi wax ay yihiin wax degdegsan it happens waxay waxaas u dhacaan very quickly si dhaqsi ah. He felt a sudden pain wuxuu ka dareemay xanuun degdega in his chest xabadkiisa. He felt a feel ay ka timid. He felt a sudden pain wuxuu dareemay xanuun aragtay degdeg in his chest xabadkiisa. Therefore sida daraadeed waa macnahan therefore waa sida darteed therefore sida darteed means waxay macnaheedu noqonaysaa for this reason Allah marka. He is fat isagu wuu cayilan yahay. Therefore sida daraadeed he will go on diet. Wuu cayilan yahay sida darteed wuxuu samayn doonaa ama aadi doonaa diet waa maxay cuntada inaad iska yarayso si aad u caatoodo cuntada cunaysan aysan noqon cunto carbohydrate-ka iyo calories-ka ku badan yahay. Exercise-yadan markaan cashar ahaan la qaadanayo oo course ahaan loo qaadanayo waa course ahaan loo qaadanayana waa maxay
waa la soo bandhigaa waa laga shaqeeyaa laakiin hadda youtube-ki waaye haddaa rabtaanna waa isku dayi kartaan buug inta daabacataan buugga laftigiina waa laydin helayaa sheekadanna sheekooyinkana iyadoo maaragtay insha allah hadda unitka 7 ku jirnaa waxaan rajaynayaa sheekooyinkan ina saasoo kale iyagana usoo bilaabo one kasoo bilaabo buug walba wuxuu leeyahay passage ama sheeko ayuu leeyahay marka insha allah casharkeena maanta soo kogyahay waa macalin abqari fadlan hala share gareeyo hala subscribe gareeyo gambalaalkan hala furto si qof walba uga faa'iideysto bulshada kana sii gaarsiin insha allah